السلام عليكم صحابي كسو دوادا muuqaal cusub oo ka hadlaya bar kamida xikmadaha mawrahyada Mustafa Laqaa. Markaad kaligaa tahay ka taxadir fikradahaaga, markaad dadka dhex joogtid ka taxadir carabkaaga iyo ficiladaada, markaad cadhaysan tahay ka taxadir dareenkaaga iyo kelmadahaaga, markaad tahay mid wax jecel ama la jecel yahay ka taxadir ballanqaadidaada, markuu Ilaahay nimco ku siiyo ka taxadir naftaada, dhulkana ha ka qaadin lugahaaga, markaad ciriiri dareento garaac albaab aan lagugu celinin dalabkaagu wax kastuu yahay, albaab aadan ku dareemin in lagu dulaynayo ama lagu yasayo, albaabka Rabbiga waayo isaga ah sanadkaaga. Dadka qaar masiibooyinka ay nolosha kala kulmaan waxaa kamid ah way iskursanayaan iyagoon isjecleen, way dhalayaan mana tarbiyeynayaan, way oranayaan kamana run sheegayaan, way akhriyayaan mana fahmayaan, haddii ay fahmaanna kuma dhaqmayaan, waxay maqlayaan in ka badan waxay arkayaan, xaqiiqada iyagoo arkaya ayay iska indhatirayaan, way dilayaan hamiyada in ka badan intay dhiirigeliyaan, waxay arkayaan khaladaadka dadka kale halka khaladaadadoodu ay isdultuulan yihiin. Ka hor intaadan gudbin nerfisyadaada xasuusno inaadan marnaba hagaajin karin adduunka iyo ceebaha dad kala toona. xasuusno si kastood u tahay qof wanaagsan qof ayaa ku xaqir, si kastood u tahay qof ixtiraam mudan qof ayaa liidaya ixtiraamkaaga. xasuusno inayna muhiim ahayn inaad mowduuc kasta ka hadasho iyo inaad habdhaqankaaga dadka kale u cadeyso ama aad u sharaxdo. xasuusno inaad tahay bashar, sidaad u bukooto inaad u khaldantid iyo sidaad u dhaawacanto inaad dadka kale u dhaawici karto. xasuusno qodob aad u muhiim ah oo ah inaadan khaladka macsuumka ahayn. haddaba ha u xisaabin dadka kale sidii ood ka timid meere aan hayn meeraha dhulkeen ku noolnahay. qiime oo jeclow dadka ku jecel, caawi dadka kuu baahan, cafi dadka ku dhaawaca. noloshu waa ayaamo, intaad ku mashquulin lahayd tirinta ayaamaha waqti geli sidaad u noolaan lahayd, waayo noloshu way mudan tahay in la noolaado. aad ayaad u mahadsantihiin.